بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس waxaa halkan la jooga warbaahintii intayna daawanaysa iyo idinkaba waxaan idin xaqiijinayaa maanta inaan xorriyadeedii helay maanta ay taariikhdu tahay 15 Shawaal 1442 Hijriya oo waafaqsan 6 bisha 6 2020 anigoo la xiray magaalada Burco laga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17 bishii afraad ee 2019 maanta xor baan ahay ilaahay baan u mahadnaqayaa لك الحمد يا رب حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا إلهي بانو مهدنقيا مهدنقنا سو كوبي كرن waxaan idin sheegayaa haddaad isweydiinaysaan qaabkan ku soo baxay waxaan ku soo baxay cafis madaxweyne ayaan ku soo baxay halkan waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo deyntayda ma magacaabi karayo waa badan yihiin aad bay u badan yihiin si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa oo runtii yani waxa weeye goolkii ugu dambeeyay dhaliyay gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Cirro oo runtii ku dadaalay inaan xorriyadeedii helo waxaanan ilaaweyn oo isaguna ka qayb qaatay gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe oo isaguna siideynteedana ugu dambeysay ka qayb qaatay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi aqbalaadda uu ka aqbalay inaan xorriyadeedii helo waxaan kaloo u mahad celinayaa qof iyo dhinac iyo hay'ad cid kasta oo ka qayb qaadatay inaan maanta xorriyadeeda helo oo ka xumaa inaan xidhnaado oo ducaynayay oo ku taamayay oo rajaynayay mar inaan xorriyadeeda helo waxa jira dad iyo aan la garanay oo dacalada caalamka jooga oo aan magacyadooda la aqoon oo khayr weyn ii rajaynayay oo garab istaag weyn ii muujiyay intan gudaha ku jiro ilaahay baa kuwa og waxaan mahad celinayaa hay'adaha xuquuqda aadanaha ee ka shaqeeyay ee arrimahayga ka hadlay kuwa wadaniga hay'adda xuquuqda kuwa wadaniga sida hay'adda xuquuqda aadanaha ee Hargeysa iyo qaranka iyadana waan mahad celinayaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa oo aan marnaba aan iga hadhin Amnesty International munadamada al-afwa ad-dawliya iyadana waan mahad celinayaa hay'adda Human Rights Watch iyadana waan mahad celinayaa barlamaanka midowga Yurub oo arrinkayga ka hadlay isagana waan mahad celinayaa jeel baan ka soo baxay waxa weeye warbaahintuna waxa weeye halkan aad igu timaadeen waxa jira dad iyo badan oo aanan ogeyn oo dhaqdhaqaaq sameeyay waxaan mahad celinayaa saaxiibadaydii muxuu ahaayay ee garabkayga ahaa ee markasta muxuu ahaayay arrimahayga ka hadlayay ee arrimahayga markasta muxuu ahaayay idila wadaagay ma ilaawi doono waxa weeye way badnaanayaan oo runtii waxaan diidayaa inaan magac gaar ah xusaan diidaya ma doonayo maanta inaan hebel iraado haddaan hebel ku bilaabo hebeladu way badnaanayaan maanta waxaan doonayaa muxuu ahaayay inaan intaa ku soo koobo waxaan si gaar ah oo aan ilaaway oo ay tahay inaanan ilaawin hooyaday oo runtii iyadu xidhnayd anigu maan xidhnayn hooyaday baa xidhnayd waxa weeye burcay ka imanaysay halkan ay igu imanaysay waxa weeye garabkayga ahayd ehelkayga waxa weeye sida ay igu samreenna jazaahumullahu khayr maanta anigu halkan muxuu weeye hadal argosiya ama hadal maaga ka oran maayo waxa weeye maanta waxa weeye waad ogtihiin yani marxaladda aynu ku jirno iyo xaaladda aynu marayno waa marxalad muxuu ahaayay ay tahay inaynu gacmaha isqabsano waxaan ku baaqayaa inaynu maanta gacmaha isqabsano waxaan ku baaqayaa inaynu bog cusub furno waxaan leeyahay anigu hadalkii uu ku yiri nabiyullaahi yuusuf alayhi salaam